عروش بربك الديتن waxaan oo wanaagsan aqyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba waa joogtaan waxaan leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la garay cid walba muuqaalka la garay subxaan allah subxaanahu wa ta'aala aan kaga baryaynaa umuuraha leedahay ilaahay inuu sala ilaahay subxaanahu wa ta'aala awlaadda uu barkaya inta awlaaddoonkaan ilaahay awlaad baari ah hasiyo inta gurdoonkaana gur wanaagsan mustaqbal wanaagsan ee baweyna hasiyo qof walba muuqaalka sheerta ku qabta siina la garaya waxaan rabbi subxaanahu wa ta'aala aan kaga baryaynaa in maal adduunyo aysan filaynin ilaahay uu siiya rabbi subxaanahu wa ta'aala uu ku cazumaa jannatul firdaws ala dambigood iyo dambiga waalidkoodana eeba uu dhaafaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa dhammaantan inta xanuunsan inuu ilaahay xanuunka ka dulqaado caafimaadna ugu bedela ummadda Soomaaliyeedna meel walba ay joogto ilaahay subxaanahu wa ta'aala nasrigiisa iyo gargaarkiisa ha siiyo waxaan idin soo gudbin doonaa mowduuc ka duwan mowduucyadii hore aan idin soo gudbin jirnay ayaan idin soo gudbin doonaa waxaan helnay clipkan muuqaalka ee aad u jeedaan waxa laga duubay gudaha ama waxa duubtay muuqaalada ama kaamirooyinka qarsoon ee ku yaal xarunta madaxtooyada gaar ahaan jagbontiga laga galo xarunta madaxtooyada marka loo socdo guriga madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida idin muuqata askarta ilaalada ka ah guriga madaxweynaha albaabkiisa meesha laga galo ayaa waxa ay ku amreen mid kamid ah dadkii doonaya in gudaha uu u galo kaas oo la sheegay in madaxweynaha Soomaaliya ilma adeer ay yihiin oo laba walaalo ee kala dhashay ayaa wuxuu diiday inuu maro meesha jagbontiga ah kadib maxaa dhacay si fiican u daabo muuqaalka si fiican u daabo ninkan ilma adeerka ay yihiin madaxweynaha oo madaxweynaha adeerkiis rumaada hooyadii aabiis kooy ku aabaa uu dhalay mar dhow ayaa laga keenay cabud waaq tuula ku taal gobolka galguduud wuxuuna soo xirtay suud iyo dhowr mar ayuu madaxtooyada galay laakiin xilligaas wuxuu la socday madaxa bartikolka madaxweynaha laakiin hadda kaligiis ayaa socda waxa ilaalada ay amreen in uu maro dhiskaanka meesha dhiskaanka qofka soo taagan uu marayo si loo hubiyo inuusan sidin waxyaabaha qarxa inuusan sidin laakiin qaamuus ayaa la yiraahdaa ninkan qaamuus waa ilmaadeer yihiin madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo waxa uu diiday bataatan buu wuxuu diidayaa inuu meesha maro ayuu diidayaa inuu maro dabadeed fir ayuu ku qaaday askartii waa la kala qabanaya sidaad u jeedaan muuqaalka si fiican u daabo kaamirada qarsoon ee madaxtooyada ayaa duubtay fir ayuu ku qaaday askartii oo wuxuu rabaa inuu qasab ku galo madaxtooyada joog qaamuus joog wariya qaamuus joog قاموس وديدن يحي ولا علينا يا قاموس مدحوينا فرماجو أديركيس أياد علي حسين فرماجو أو محمد عبد الله فرماجو قاموس حسين فرماجو أيال كلي هذا مدحوينها فربو قد قاعد أسكرتي قاموس كذب كاميرا ذو حلوق جاي مدحوينها صومالي وتصين قاموس إذا ورقم يو مدحوينها هو قصري وحقوق قاعدين كانوا نرمي هاي وحنا الأمرين لحرو أو لجاي قل مشين وكأني يسوق برتمشينك قاموس وحقوق هيستعدوا مشينك galo in mashiinka uu shiidayo wax in asagan la shiidayo ay u haystaa waxay kamid tahay dhaqankan inuusan la qabsanin dhaqanka magaalada qaamuus xabsiga ayaa ku soo baran doonta dhaqanka magaalada nooc uu yahay nabadgelyo aqyaarey saaxiibadiin la sii wadaaga si ay u arkaan bulshada dhibaatada ka jirta madaxtooyada iyo dadka korka imaanaya dhibaatada madaxtooyada ku hayaan